25 Juulaay maalin sabti ah sanadkii 2020 xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaatay go'aan lagu tilmaamay ismiidaamin siyaasadeed kadib markii kulan buuq badan lahaa ee kalsoonidii kala noqdeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee dalka soo mara burburkii kadib sidoo kale waxa uu ahaa ra'iisul wasaare awood badan muddadii uu joogay xafiiska waxa uu qabtay waxyaabo wanaagsan oo ay ka mid ahaayeen bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka oo ay qayb ka tahay barnaamijka diin cafinta la dagaalanka musuqmaasuqa soo celinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo muddo dheer isaga xirnaa wadamada Afrika oo la dawlad u dooda iyo waxyaabo kale sidoo kale muddadii uu joogay xafiiska ra'iisul wasaare Khayre waxa dhacay waxyaabo badan oo dhinaca siyaasadda iyo ammaanka ah dadka xoogaalka ah arrimaha siyaasadda waxay aaminsan yihiin in ra'iisul wasaare Khayre uu xilkiisa ku waayay damac muddo kororsi oo ku jira madaxweyne Farmaajo waxaana la aaminsan yahay go'aankii xilka looga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre inuu ka yimid villa Soomaaliya kadib markii Khayre shir ay yeesheen golihiisa wasiirada uu ku sheegay in muddo kororsi oo dalka gelin karo xaalad halis ah waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaas siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri sida golaha wasiiradu ay codsadeen marka waa inaan u shaqeynaa kulligan in hadda la soo gaaray waqtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samata bixin lahaa meesha aan joogno lana gaarsiin lahay doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin mooshinkii lagu riday xukuumaddii hore ee ra'iisul wasaare Khayre waxa uu ahaa mid kidis ah waxaana lagu baraarugay saqdi dhexe ee habeenkii Jimcaha waxayna markaasi ku beegneed maalin kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka soo baxay shir ka socday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya shirkaas oo looga hadlayay arrimaha doorashada Soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa buuq ka sameeyay fadhiga iyagoo sharci darro ku tilmaamay ajandaha oo aan lagu ballamin waxayna arrintaasi sababtay in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo muuqaal ku soo duubay xafiiskiisa kadibna uu sheegay in dhacday xukuumaddii ra'iisul wasaare Khayre waxyaabaha lagu sababeeyay kalsooni kala noqoshada xukuumaddii hore ee Khayre waxay ahaayeen 5 qodob oo kale ah in xukuumaddiisa ay ku fashiratay hanaanka doorasho ee qof iyo cod ah dhamaystirka nidaamka federaalka ah afti u qaadida dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka hergelinta nidaamka axsaabta badan ee siyaasadda iyo diyaarinta ciidan qaran oo laga maamulo Muqdisho hal sano kadib maxaa ka qabsoomay waxyaabaha la sheegay in kalsoonidii lagala noqday xukuumaddii hore sababta rasmiga ah ee kalsooni kala noqoshada xukuumadda ma waxa ay ahayd wax qabad la'aan mise diidmo muddo kororsi nidaam sax ah ma loo maray xilka qaastii Khayre su'aalahaas waxaan weydiiyay Abukaata Cabduqaadir Maxamed Cusuble ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Xasan Cali Khayre runtii wuxuu ahay nin howlkar ah oo daacada oo dalka iyo dadka u adeegaya ayuu ahay xilka qaadidii ay ku sameeyeen baarlamaankana wuxuu ahay mid sharci darro ah maxaa yeelay qofka marka la daliilayo horta oo dambiye iyo wax lagu oogayo waa in loo yeero marka waxay u yeeraan waxyaabihii ay ku dhaliilayaan ay u gudbiyaan kadibna ka soo jawaabo waxyaabahaas ma dhicin iyagoo dana gaar kulli la fashilay waxay taaba ayaa xilka laga xayuubiyay taasoo nasiib darro ah runtii waxqabadkiisa waxay ahayd mid cad balse nasiib darro waxaa u mideeyay inaan la baahnay ninka dalka iyo dadka wax u qabanaya ee la rabo in la gooyo taasi waxa weeye waa mid aan runtii baarlamaanka laftiisa aan ku dhaliilay filashadii ay baarlamaanku lahaayeen hal sano kadib markii xilka ka qaadanayeen ra'iisul wasaare Khayre ma la helay waxyaabihii la filayay oo lagu eedeeyay wax qabad la'aanta ahaa ma la hiigsigaas ma la gaaray mise waxbaa dhacay gadaashiisa waxba laga gaaray waa ogtahay dhibaatadii dhacday intii shiroo la qabtay dhibaatadii dhacday xataa dagaalada dhexeeday markhaati baad ka tahay laftigaada oo kadib la xalliyey ilaa ay haddana ay taagan tahay doorashadii muddo kororsigii sababay xilka qaastii xukuumaddii hore ee ra'iisul wasaare Khayre waxau sidoo kale dalka geliyay xaalad adag oo dhanka ammaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ah magaalada Muqdisho ayaa martigelisay muddo dheer kadib dagaal dhiig uu ku daatay waxaana la weeraray madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya gudoomiyihii hore ee baarlamaanka hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo murashax Xasan Cali Khayre oo muddo 3 sano ka badan ra'iisul wasaare u ahaa madaxweyne Farmaajo maamul goboleedyada iyo villa Soomaaliya ayaa shirar badan ku kala tagay iyadoo beesha caalamkana ay kabkay ka goosatay dawladda dad badan waxay aaminsan yihiin in hal sano kadib dalka uu weli ku jiro xaalad hubanti la'aan oo dhinaca doorashada ah